gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbro oo weheliyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Sheekhu Beledka gobolka iyo sidoo kale culimaa udiin ayaa maanta kulan ballaaran la yeeshay maamulayaasha dugsiyada sare hoose dhexe dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee magaalada Boorama. Kulankan ayaa waxa ujeedadiisu ahayd arrimo dhowr oo ay kamid yihiin tayeynta waxbarashada ardayda iyo akhlaaqdooda, fulinta awaamirta guddida heer qaran ee ka hortagga cudurka corona si loo sugo badqabka ardayda iyo sidii wadajir wax looga qaban lahaa ciribtirka maandooriyaha. Kulankan oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeeke Cismaan Ciye waxana uu yiri markood Ilaahay baan uga mahadnaqaynaa maanta aynu sugu nimidnay kulankan ballaaran ee ah wada tashiga waxbarashada sidii aynu tayada waxbarashada kor ugu qaadi lahayn iyo sidaynu anshaxa ubadka aynu gacanta ku hayno dhinac marka uga soo wada jeesan lahayn. Waxa ugu muhiimsan dugsiyada la furaya in horta marka koobaad ilaalino badqabka ubadka aynu gacanta ku hayno inagoo raacayna dhammaan awaamirtii ka soo baxday guddida heer qaran ee COVID-19. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Sheekhu Beledka gobolka Awdal Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhari iyo qaar kamid ah culimaa diinkii ka soo qayb galay. marka culimada haddaanu nahay horta waxaan dhiiri galiyay nin gudoomiye gobol ah oo yiraahda intuu masaajidka ka kacayraa fasaadka iyo munkaraadka iyo anshax xumada waxbaan idin kala qabanayaa arinta igu garab galo igu caawiya xaq baan noo aragnay mas'uuliyadda annagu aanu lahayn haddaan culimada ahayn aanu la tagi lahayn oo uu nooga horreeyay baan noo aragnay muhiimadda noogu weynay annagu haddaan culimada nahay bahda waxbarashada haddii aad tihiin inaad dhalinyarta wacyi gelisaan dacwad wacyi gelisaan sidii ay yani idinku soo sheegi lahayn madaxdiina idinku soo sheegi lahayn arday walba xaafad buu ka soo kacay xaafadda uu ka soo kaco haddii khamriga lagu iibiyo ama aqal khamriga lagu iibiyo ay jiraan inay idinka idin sheegaan oo arday walba maamulahooda ay u sheegto maamuluhuna uu la soo xiriiro hay'adaha dawladda uu la soo xiriiro yiraahdo meesha hal loobiyo uu yiraahdo waalidka iyo macalinka iyo ardaygu hadday isku xidhmaan tayadu kor buu qaadanaysaa. midda labaad waxa weeye akhlaaqiyadkii sidii kor loogu soo qaadi lahaa hala eego ina baad arkaysaa aroortii afkay soo casaysatay waa dugsi sare ama jaamacaday tagaysaa ina tani afkay soo casaysatay kulka ma xaflad bay tagaysaa xagay tagaysaa waxaana ka yeelina kan door kalena ha ka yeelina haduu doorka haysto reerkooga ha joogo macallinku hadduu ilmaha toosiyo oo macallin hagaagsan noqdo wanaagsan oo ilmuhu macallinku eegtaaye marka ummadan waxa u soo baxaya ummad marka barito waxa weey marka hoggaan fiican noqota dhan walba. inta kadib waxa hadalka qaatay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed iyo sidoo kale Professor Diiriye oo kamid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Camuud. waalidka iyo macallinku hadday is og yihiin ama iskuulka iyo waalidku horta waan ogahay waa boqolaal waa kumanaan baad imanka haysaan dhinaceeni hadday kan ka adkayno ka kale uu dhib yaraanaya isna wacyi baynu isna gaarsiin way nooga lex jecel badan yihiin marka inaan iskaashi u maanta u nimi cashar cusub ma aha laakiin inaan isu baraarujino in xaqiina iyo xaqqa iyagaba maamul ahaan markaan xaqan iraado waa xaqi maamulkan isu yardaraya dadka waxbarashadan dadka ku hogaamin jirnay timaayana la inaga horreeynin waxbarashadii soo ceshano tayadeena soo ceshano han isxilqaano aan gelnka dambe u dhigno fasalada badan aan tirada ka yareyno tirada han yareyno inta fiican si fiican waxaan u dhigo. gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbro ayaa baaq u diray bulshada ku nool gobolka Awdal waxana uu yiri waxa la inooga baahan yahay inagu inaynu wixii xumaan ee xaafadeena ka dhex socda qaybteena ka qaadano haday nabadgelyo xumo tahay haday daroogada iyo khamriga tahay waliba khamriga sahlan bahal xashiishad leeyahay oo qofkii aan waxba ka soo ureyn oo haddana wax ka sii yihiin aad qofka arkayso ayay nagu soo kordho caruurta maskaxdeedana baabiinaysa haddaynaan ka hortagina biiskale naga soo baabinayo xagga hoose la dagaalankeeda mudnaanta koowaad cidaan isla waxba ka qaban kartaa maamulayaasha dugsiyada oo adeegsanaya macallimiinta iyo waalidka iyo ardaydaba waxa soo dhan baa leenooga baahan yahay inaynu saxno saynu ku saxaynana waa inaga wada jira. gabagabadii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar kamid ah maamulayaashii ka soo qayb galay kulankani iyagoona sheegay inay fulin doonaan ajandaha kulankaasi. Waa Cabsalaan Saaha, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Boorama.